magacaygu waa Saliim Sheekh barasho wanaagsan qof walba kursigan ku soo fariista waxaan jeclahay inaan isbarano haddaan isbarano waxa ka leedahay danahaaga ka hadal danahayga waan ka hadli doonaa macaanay laakiin marka hore waxaan jeclahay labadeena inaan isbarano war danahaaga ka hadal waad xanaaqdaan malaynaa danahayga inaan ka hadla habboon fayla xaggaaga ii yaalo nambarkiisuna waa 7MB W1994 adiga feelkaas kaligiisa kadib waxa u gudubsaa wasiirka waa intaasoo kaliya danahayga feelkaasi waan arkay laakiin amar uma qabto hoteelka inaad dhistid sabab maxaa dhacay adiga ka fikir aniga haddaan dhiso hoteelkaas adigoo kala imaanayo kuna raaxaysanayo hoteelkaas haddaad dhistid darooga ku gadaysaa qamaarna waa lagu cayaarayaa naagahana waa lagu gadgadayaa saldhigga tuugada way noqonaysaa dadka masaakiintana lacagtooda oo ku dhammaanaysaa sidaasaana lagugu diiday adiga iga raalli noqo haddana waa bixi kartaa sidee u hadlaysaa adiga waxaad ilowsan tahay faa'iidada aan ka hadlaayo weli waxaa kaloo ilowsan tahay kursigan haddaad sidaan ugu fadhiisid dalcad inaadan helayn laakiinse haddii aan wada heshiino aan is wada fahanno gacnahan aan isgelinno wax walbaa la helayaa haddana waxaad ogaataa wax walba inay ku jiraan gacmahaaga anigii aamin waxaana kuu ballan qaadayaa noloshaada inay ciriiri gelin waryaa aniga dhaqdhaq badan uma baahni orodoo suuqyada la aad meeshaana waa xafiis dawladeed ka bax albaabka waad xanaaqdaa umalaynaya kollayta xanaaqan kursigaana kaa keenay soo sidaas maaha waryaa adigaan kula hadlaya ka bax albaabka deji waan baxayaa laakiinse mar kalaan isarki doonaa nabaday kibirka naagtan ku jira iyada maaha waa ninkeeda jaala garsoore isbitaar iyo shanta horta runtii aniga waa aaminsanay nin fiicanaan umaleehay waa khadari jiri laakiin gadaalihi waxaa ogaaday inaas yahay in laaluushka qaato dadka macna dara iskaga dilo weliba qaarkooda kawaska sii jiri ninkan aniga hool xaafadda ku qoran aan waxaan la kulmay asigoo nin dilaayo markaan dhahay ninkaan iska dhaaf naagteedas xerib ugu marjii nafturuqasii ilaas ninkii kaw askaga sii kaadayaas keena ninkii meeshaasna ku dili hadalkeegana waa diidi halahaasaan arki magow aniga intaasaan ugu baxi jaala garsoore waa mahadsan tahay adiga waa bixin kartaa isbitoore iska bax axsanta garsoore ninkan dembigiisii wuu cad yahay asagoo ah nin ciidan ah mas-uuliyadnay saaran tahay oo xaaskiisana ay ka shaqayso xafiis dawladeed intaasoo og ayuu dembigan ou galay dembigan markuu galayay kama uusan fikrin xaaskiisa in loo safinishaayo dembigan ou galay dartiisa haddii aniga dembi walba oo aan galo naagtayda ay wax ka soo gaarayaan ama shaqadeeda haddaba waxaan idiin sheegaa maxkamadda horteeda naagtayda waan ku furay aniga saaxiibkayna waa abukaate markhaati ha ka noqdo naagtayda haddaan fura dembi ma lee war aamus dambiina lagugu tale war dembi maan lee aniga ninkay naagta maxay isku guursadaan inay isfahmaan adiga ii kaadi naagta hadday ninka dhib ay ku qabto amar xaq wuxuu leeyahay inuu iska furo maxay isku qabayaan war ma been baan sheegaya waraale ahaada ninkan waa nin dhegayso hadday ninka dhib ku qabo xaq uu leeyahay inuu iska furo sheega aniga ya maxaa tiri laakiin maxaa ka wadaa aroos muxuu yahay ii sheeg amar khayli hala joojiyo arooska ma waxaad u haysataa adiga in dhar la soo xirta keliya habeenkan in la soo ido kaas aroos ma waa xishoodkaa sheegaya waa maxay xishoodku amar abukaati dhegaysa adiga waxaan kuu sheegayaa kamaal aniga tooleed inay shaqaysato oo aan iska fasaxo ayaa marka waxaan kuu sheegayaa naagtan waa fasaxaya sidaasaan u fura aniga allaha adigaba waxaad ila doodaa waa qalad naagtan anaa qabi jiray haddana dacwadiina waa inaad wadataan naagtan aad soo gashaan adiga waxaa keliya kuu furan inaad dacwadda furtaan wari dhegeysa maxaa kuugu dhac adiga dadka hortooda maxkamadda la buux miyaa aniga igu hor furaysaa maxaan galabsadaa aniga ii sheeg maxaan dembiyo kaa galay wax dembiya ma lid adiga dadkaasaan been ku cabaaya aniga
aniga adiga sidayna aan isu qabnaa waxaan keliyoon diidayay dembiyada aan gelaya aniga in shaqadaada ay dhaawac gaarsiido sidaada u shaqayso anna hawshayda ayaan ka wadanaya meeshayda aniga waqti kastaba waan kula jiraa hadalkan afkayga keliya ayuu ka soo baxay qalbigayga ma jiro shaqayso anigu weli waan ku jeclahay bal fiiri kanoo kale dunida ku nool naagtiisa ayuu maxkamadda ku furay asagana waa la xukumay naagta maxaa u yaalla maxaa u yaal maxay tahay ninkeedu wax ugu dhibnaa anigaa u dhammaystiraayo soo dhawow mudane soo dhawow maanta markaan ku arkay waan farxay anigaba waa ku farxay maxaa in labadeenna isku mid ayaan nahay waa isla cunaynaa waa isla cabaynaa isku dharaana wadanaa faraq noo dhexeena ma leh feeri kan waa dhiiggayga waana dhiig xalaal ah waana nadiif feeri dhiiggaaga ma aha waa dhiigga masaakiinta aad ka cabta adiga xaaraan waayo xaquma liid adiga adiga tuugnimo ayaad dhiigga uga cabtaa laakiin masaakiinta anoo u danaynaya ayaan dhiiggaaga cabayaa aniga adigana farqaasaa noo dhexeeya adig markaa wax diisatid raaxa kuma seexatid laakiin aniga markaa wax dila raaxa ayaan ku seexdaa farqaasaana noo dhexeeya adiga habartii dhashay way kugu khasaarta madaxeedana hoosuu jiraa laakiin aniga habartii dhashay madaxeeda koruu jiraa farxadayna ka bixin la'daa iyo reerayn farqaasaana noo dhexeeya anigu waan ogaa dad indhala inaan muraayad ka gado laakiin maalin maalmaha ka mida ayaan indhahaaga furi doonaa muraayaddana aan kaa iibi doonaa indhahaagana ka arki doontaa warkaygi ma fahamte hawayaan waa maxay qoftaan nus saac ayaan sugayaa miilowda maxaa dhacay waryaha gelin hay adiga nus saac ayaan ku sugayay maxaad iigu eweede soo ma jeedo qof inaan la hadlaayo bannaanka fadhiisto kadib ayaan ku wacayaa waayahay waxaan umalaynayaa inaad iilowday sideen ku iloobaa adiga hadal bal waa gabartay ani milinga waxa ku jira arisha tomishan ilma qali milinkii aan tomishan sana iska deganahay ilmihii ani milinkii iska baran diriskii dhan waa baran inkii milinka laan ma sidoo milinkii waa u baahnay iga guur hadii iga guuranin bilbol baasi u daras ana tabartay ma hertaq barakaas ka suuqa wax iska gagarooya gabartay meeshan laaluusha loo jooga laaluushin tabartay ma ani ilma ku tileen qof dilay loo waa kaas laaluush may ku dhaheen ha anigii soo raac ma baka xidhoy adiga meeshaan joog xageed u socota war gabar waa kala xoogooda istaag fiiri kaarka xali dadkan kaga xordida maxaa la jiftaa marada iga dhac war yaa gabadha daaya kuwa hadal ma maqlaa war maa daysiin gabadha war yaa daaya gabadha daaya anigii soo dhawaada haddaa gacmaha idinka goyn waa arki doonta iyadaada warnaga wada meesha wecelayaal gabadhay xoog rabeen ka waran naaya mayaanantay adiga maxaa keligaa ku socodsiiyey aaway ninkii ku qabay oo jidka saacaddan kugu soo daayay maba kaa naxaybee nakeen soo bax ha cabsaniya anaa kula socdo waryaa nimankiina ragga isku sheegaya haddaad oonka yeerinaysaan miyaa maantana markii gabadha la burbursanaya waa u joodeen ma ka celinaysaan xataa waxaa tiinaab iska yar orda naga taga ها وزير كان وبعناه ها وانا سودا ها اسبطار جوشيا كل هذا waxaan rabay inaan ku sheego arintii Saalim Sheekh oo la rabay inay dhamayso yeeshwanta xaaskiisa ma dhameeninba waan ugu soo naqdi si wax wadanaan ilaa hadda ma ka sooy aw saaxiibkeena ma go weerar yar ma hayo weerar culus saaya xali ma go doosku dalbadi la hadal adiga ma waash ninkaas ma ogi anaga agteen waxyaabaas kama soconayaan awood looma baahan maskaxa loo baahan yahay qoftaan waa yeeshwanta naagtiisa maaha gabar cayaarayso ambaara ku duqoode una ka dhamaas ban ceebe hooyaabe waa idinku waxaad samaysaan waardiyi u samee oo ilaaliya waa la suubiya ma go hadda askariyaan u hele oo iid ay isku kulaaja ahaayeen waqtigii hore wiilka magaciisa John Frank
kolleejka u dhigaya magaciisa JV waa hagaag waa sidaasaan noo balanah labadeen labaday garabkiisa laxaati garoor okay jarjarane haa mudane filimkani waxaa dib u habeen loogu sameeyey Farmbroch Productions Studio Mombasa Kenya بس الآن يا ربي اسكب حد gudaha ma soo geli karaa soo gal waa ku salaamay john haa adiga inta maxaa xaggee jirtayne fariiso mahadsanid fariiso haye aniga meeshaan waxaa u maaday inaan ku badbaadiyo micnahayga ammaankaaga aan sugo hadda su-aalaad inaan ku weydiyaan rabaa waktigii kuleejka adiga ingiriis le ku hadli jirtay af soomaali dhan maba ku hadli jirinba hadda adigaanba kula yaabanahay oo idhays ammaankaagaan sugahayaa maxaan sameeyaa shaqadaydaa saas eh hadda waxaan doonayaa inaan micnahayga aan ku weydiiyo maya iska dhaaf farkaas maxaa cabaysaa shaah kafey sokor la'aan ah kafey keen sokortii caanahana gooni u soo qaad soo dhaqso marxaba kulankeena aadaan ugu farxay adiga weli isma bedelin qof markaa laalays indhahaaga hoosay jiraan shaarbaha badso askari run ayaad u ekaanaysaaye shaarbaha barta afka ka bixi gacantaada qabow waaye oo caadi ma guursatayne waa rajayna aniga rajo haa rajo micnahayga weli ma guursan haa weli ma guursan sax wakti walba dirishadaan ha xirnaado ma ilaa maya waad xiraysaa maxaad la qoslaysaa adiga kulankeena aad ugu faraxsanahay aniga john abaalkaa ii gashay aniga ma gudi karo ma fahmin hadalkaaga waktigii kuleejka adiga ayaa lacagta iga bixin jiray haddaa adiga lacagtaas iga bixin lahayn aniga heerkaan ma gaari lahayn lacagta hadda waa bixin karaa laakiin waktigii ma soo noqonayo mahadsanid adaa mudan marka hore la rabay inaan kuu mahad celiyo iga raali noqo waa iloobay raali ahaw john aniga waxba ma iloobin aniga ma iloobin kafeegii waa haa inta saar sokortaada iyo sokorteydaba anigaa ku wada darsanayo adigana qaraarkaa jecleed oo cab maxaa samaysay mudane qoftii ma istaaf u yeeshay oo dadka dhexdooda sharafta iga qaado dharbaaxday iska ilow waxaas waa dhammaad iska ilow adiga xabadaha gadaa anigana xabadaha waa ku cayaaraa soo sax ma hadalkayga beentaa maahin haddii adiga maskaxaad lahaan lahayd dharbaxna waa ilow lahayd sidaasaan wasiir lagu noqdaa ma fahanta hadalkayga laakiin mudane taas aniga shaqadii ahayd hadda aniga maxaan sameeyaa adaa difaacaya mudane adiga qoftaan waa dumar dumarkana lama qasbo marka waxaa loo baahan yahay in maskax la isticmaal xoog ma aha hay jeeshi juusta waaya adiga marka qoftaan waa dumar dumarkan sharaftooda ilaashadaan adigana sharaftooda haddii mar aad ka baabaysid wax ay tahaaba iska yar way u dhammaanaysaa marka soo sax maa jeeshi juusta waaya adiga marka looma baahna gabadha inaad ciidan aad ku dalbatid gabadhaan waa gabar aad ka faa'iidayso ow jaala wasiir fikrad fiican aad siisay maanta
fikradaas awgeed aan kursigan u fadhiyaanay soo sax maa jooshi juusto waa aniga adigana mis arkin mii fahantay hadda is hor fadhinaahe saliim waa maxay sidaan gabadh adiga ku dhar baaxday oo dadka hortooda kugu ceebaysatay anigan gurigay igu imaad ay igu fadeexaysay ma u cadday war adiga qorshaan ma fahmaysid waa qorsho wasiirada degan wasiirada sidoodaba markay rabaan inay doorasho galaan dadku waa inay soo dhaweystaan ay sharfaan ay xaggooda weji ka yeeshaan waa ku fahmay walaal adigu waxaad tahay qabshaqadeeda si wanaagsan u gudanayso waayo waxaan ka dareemay sida dadka ay ku jecel war yaa sheeg yaa dilan ninkan yaa haddaad nashid xasanka wacdiyo war yaa sheeg yaa dilan ninkaas yaa yahay nimanku yaa yahayaan sheeg waryaa waa sheegdiidda soo maa anaa kaa dhalinaya haddaana feeraha ku jiro iska sheeg waryaa nimanka sheeg waryaa war iska sheeg waryaa يشوان نكان اسكراف isii daadaiga ninkan aniga aqaana feerihiise ninkii waddaniga ah oo macallinka ahaa gabadhiis maanta asayad ayaa loo saaray waayo ninkeeda ayaa maanta tuuga dileen maydkiisana cisbitaalka u yaallaa asigoo si xun loo dilay waa ka xumaa ninkaas dhimashadiisa maxay u dileen ma taqaanaa wuxuu arkay ninkaas nimanka damceen aniga inay dilaan oo xabadaynaya ayuu aragay ninkaas waana dilay ninkaas hoo jirkayga isaga ciyaar jirkayga adigaas kale laakiin caaw ciyaartaa aniga qayb kama qaadanayo adiga ilaa nusaa garoonkan isagaa ciyaar aniga nusaa wixii ka dambe cisbitaalka ayaan aadaya waa ku qasbanaa inaan cisbitaalka aado maydkiisana waa inaan qaadaa oo aan soo gubaa iska baashaal adiga raaxayso jirkaan adiga iskale iska baashaal adiga anigu waa dareemi karaa baahi inay baahi tahay ama mid calool ha ahaato ama mid raaxa ha ahaato baahi waa baahi calool hadday tahay daawadeedu waxaa weeyaan waa in la buuxiyaa hadday mid raaxa ay tahana waa in la dhammaystiraa saas leewa laakiin aniga caawa qayb kama qaada karo waayo maskaxdaydu waxay jirtaa isbitaalka adiga sidaa doontida iga samayso laakiin aniga caawa dismuraal ayaan ka ahay shaqo badan ayaa ii taalla waa inaan maydkaas soo gubaa isbitaalka waa inaan aado oo aan maydkaas soo gubaa
taliya ma soo geli karaa soo gal fariis mahadsanid fariis mahadsanid taliya taliya kan aniga shwaya ma iska dhaafana shwaya siisiyaan fadhiis taliya waan fadhiyaa isdeji waxba isfaalaadi naftadu waa inala raaxeeya si deganaa u fadhiiso mahadsanid waxaan rabaa aniga muddo 5 bilood magaalada inaan ka maqnaado taliya ka badan ayaad heli kartaa aniga ma rabo dadaa waxay jeceliin ka badan inaan qaato dadna waxay jeceliin shaqada inaan laga fariisiyo taliya marka hore adiga cad maya ka gudub aniga waxaan rabaa shaqa inaan kuu dhiibo ay labiskaagan qaado taliya waan dadaalayaa sidaasay tahay dada kontaraygu ah waa ogahay aniga waa ogahay shaqadaa iska wado wixii dhacay waa arkaynaa laakiin aan muddo 5 bilan kaa maqnaana aniga 5 bil kadib wax ma kuu qaban karo هيا عمو طريق ما تاجنتها طبعا ربي اسي ادر صاور يا توكس ما بالله باي ما توكسنا دين اقصي دينك ما حد كسمينه انا باي يا شلي وحنا انا ابا وح مكين ميا ابي وح مكين قمار وقعيار هويديدن وديلي انا حتى غورغو iga soo eeray hadana baay hayso طبعا ربي ideen noqsina صاحبنا وكسينا كودي ابا حق اللي قاله ما صاحب ما تي خمرنا ولا صديلي صادي ما حكاها جرى صح هيا المقول كلا أردا يشون جنولا يا مالي سوق بقى يقول دوفي سان ما يسو دوفين سأعمل وكل عماس وريا غمرجي لعقت أنا تقول عياريسا طب محاوي والله لعقت أنا تقول عياريسا خمار أمك سايبه وكسيسا بركي مساكين تان لعقتود أديك دميسا مصروف كأيو جيسان لاين المهودة كل أديك وددو فريسي مداس مدا كاية لما kuwan waxay sameeyaan naagooda masruufka ay u geyn lahaayeen qamaar ay ku ciyaarayaan kadib naagii ay garaacayaan caruurtoodana banaanka soo qubayaan masaakiin amal ay dariiqyada tuugsanayaan adigana qamaar ayaad maalin kasta la ciyaartaa kaama yeelay maanta aniga adiga ayaa maanta ciyaarayna maalin kasta kuwan qamaarka waa ka heshaa aniga adiga waxaan kale leenaa maanta aniga adiga ayay joogtaa nasiibkaad qabtaa qamaarkuna turma waa busolad waa u jeedaan u malaynaya waad arkaysaa hal baalootan ka bixi nasiibka qamaar rageed sidaana la yidhaha hoo dhaqso maxaa sugaysaa واكسيحة وليه meeshan ma yaallo qamaar rageedaa la yidhaha kan turub qamaar ma ahaya waayahay anaa ku bilaaba adiga waad cabsatay haddii aan badbaado anigaas kale lacagta macyaare tookadaada yaa la gaaray lamida qof aniga u baahan qofnaasaa ii baahan laakiin taas weli ma dhicin hooyadayay tahay ma garanayo aabbeeyuu yahay ma garanayo askari dablaa ayaa dariiq iga soo qaaday anigoo yar meeshuu callada u geeyey sababtuu ii geeyen ma garanayo anigu waxaan ku soo koray dhib rafaad qaxar ayaan ku soo koray sababteedana ma garanayo sidee wax u bartay waxaan wax u bartay ma aqaano sababtan ciidannimada aan u qortay ma xusuusto laakiin waxaan xusuusanayaa hal waqti iyo saacad walbaba hal walxaataan xusuustaa aniga qofii rabta ma jirto waxaana doonayaa inaan iska dhinto fiiri hadda waxaa jira ciidamo fara badan oo aan inta ku soo koobi karin oo doonaya aniga inay dilaan oo noloshayda arki karin inay dilaan doonaya maxaa yeelay anigu waxaan ogaa danahooda suuqa madow ah ayagu mar kastaba igama guulaystaan sidaasay rabaan inay ii dilaan anigana inaan dhintaan doonayaa dadkaas waxaa ka mid ah naagtayda naagta aan aniga qabo ani naag agoon ayaan guursaday anigana agoonana waxaan u guursaday si aan isu fahamno
ninkii meesha wacalladii geeyey magacuu ii bixiyey magacaasna naagtayda ayaan rahan ahaan u siiyey magacaygaan siiyey jacaylna waa siiyey magaca yashwanti waa xaaskii yashwanti magacii rahanta ku ah ayaa dhibay waxay raadinaysaa magac kale allaare waa inaan aniga go'aan gaaraa magacayga intuu lumi lahaa labadaa ruux waa inaan dilaa dictor oo lacagtaada yashwant xaggeed u socotaa maskaxdaada wiil ma fiicno adayga goormay fiicneed adina lacagtaada visitada qaado nabadgelyana ma hubtaa arrintaan arrintan waan hubaa waayo labadooda waa laba qof oo dhallinyaro ah isku kollejna way ahaa jireen ruux xirraa markii la sii daayo uu baahan yahay baahidaasu ha noqoto mid niyaddow ka qabo ama mid calooshow ka qabo meeshaas aniga ma joogin ballantaanna waa miday hore u dhigata ayade baahid waa jirtaa waxaana loo baahanya in la daboolo maxaa sameeyaa qof aniga hadduuna ii baahnayn maxaa sameeyaa bes qamro waad ka dheragtay markaan hoo kan cun hoo way sugi weysay aniga intii aan ka soo baxay way sugi weysay xabsiga intaan ku jira ayay ka faa'iidaysatay anaa nin xunoo naag xun aaminay xayawaan yahow bilaa adaabka ah waryaa ma naagtaadaad ka sheekaynay waryaa xayawaan war neef yahow neefka kale aan jirin war arad guriganoo dhabbax war naga tag qashin yahow qashinka kale war hana xayawaan orad naga tag waryaa xayawaan baa tahay ma naagtaadaad ka sheekaynay waryaa adaab ma lihide orad adaab yalo waryaa war iga tag hayga dulmin naagtay orad bax baktiyo waxaa lagaa dhigto ma istaheshid ayurantiyo aqbu naga tag isfark saaxib albaabka iga fur albaabka saaxib inaan kula hadlaan rabaa waayahay waxaan ku faraxsanahay waa sanadkii aad dhalatay kaligaana ma tihid anigaa kula jiro dhaafana sawiree hadduu u bato aniga wuxuu idhahayaa naagtaasi waa naag xun niyadeennana wax xun kuma jiraan aniga walaashaa oo kalaan ahay adigana walaalkay oo kalaa tahay xiriirkaasaa naga dhexeeyo laakiin xumaato ayay xiriirkeenna u beddeleen sababtaas ma garanaayo haddayna ceebaynayaan yay nagu ceebaynayaan dadweynaha oo keliya anigana ma ka cabsanaayo dadweynaha iyaga maxay la tahay dadweynaha xaggiisina ceeb iga soo gaaraysaa middaas iska ilow iyaga ma oga laakiin ani waxaa ogahay inaad adiga ixtiraamtid hay wax ma dalbanaysiin maya waa mahadsan tahay aniga ninkaygu waa askari anigoo agoonuuna guursaday magaciisuuna i siiye weligeena ima daraysin inaan ahay gabar agoon ah heerowna i gaarsiiye intaasna yaa laga helayaa maanta yaa laga helaa asxaankaas runtii aniga iyo isaga laba meel ayaan kala deganahay sidaas ay tahayna waan isqabnaa john aniga nolosheeda hal kelmad ayay ka bilaabanaysaa hal kelmad aynu ku dhammaanay yashwar haye john habeen wanaagsan adiga inta maa joogtay layaab may kula noqotay maya mii la noqon shaqo badan ayaa kuu taal
oo overtime ah maya shaqo iima taalo aniga